marka hore waxaan u mahadnaqayaa bahda saxaafadda ee halkan maanta aanu ku kulannay shirkan jaraa'id duubaysa. mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland sidii quruxda badnayd ay uga qayb galeen dabaaldegyadii iyo soo baxyadii xisbi kastaaba ha lahaadee waddanka ka dhacay ee doorashada bishan 11aad 13keedii ka qabsoontay. waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa shacbiga kulmiye ee cududoodii iyo codkoodiiba ku taageeray sidii uu mar labaad u hanan lahaa kursiga xisbiga kulmiye. dhammaan shacbiga reer Somaliland waxay qayb wanaagsan ka qaateen siday u suurtagelin lahaayeen inay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah. waxay muujiyeen bisayl aad iyo aad u sarreeya iyaga oo ku soo gebagabeeyey inay safafka ku galaan iyaga oo nidaamka ilaalinaya, qofna qof aanu riixaynin, qof waliba qofka ku xiga uu ixtiraamayo. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaynu ognahay maanta inay codayntii dhacday muddo 2 cishaana laga joogo. waxaynu ognahay xisbi waliba inuu maanta garanayo wixii uu cod helay inuu maanta xisbi waliba uu ogyahay. waxaynu garanaynaa guusha ciday raacday. waxayse aynu sugaynaa inuu si xalaala oo kama dambaysa uu ugu dhawaaqo komishanka doorashooyinka qaranku sida sharcigu dhigayo. axsaabta waxaa la gudboon ama xeerka doorashada xeerka anshaxa doorashadu in ay sugaan go-aanka guddida doorashooyinka ee ku saabsan natiijada kama dambaysta. xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay inuu ixtiraamo go-aanka laga sugayo guddida doorashooyinka qaranka. waxaanu uga digaynaa xisbiyada mucaaradka ahi inay ixtiraamaan go-aankii dadweynaha shacbiga reer Somaliland, inay ugu abaalnaqaan sidii fiicneyd ay uga wada qayb qaateen doorashada, inay ku ilaaliyaan oo ku ixtiraamaan sidii quruxda badnayd ay codkooda u bixiyeen iyaga oo go-aamiyey cidda ay guushu raacayso. waxaanu leenahay wax kasta oo ka hor dhaca ay ka mid yihiin xaflado been abuurihi waxay foolxumo iyo qurux darro ku keenayaan go-aanka shacbiga. waxaanu diyaar u nahay haddaanu xisbiga kulmiye nahay inaanu sugno muddada. shacabkeygana waxaanu ku gubaabeynayna iyo taageerayaashayada inay iyaguna ixtiraamaan oo ay sugaan inta komishanku uu ku dhawaaqayo natiijada kama dambaysta. waxaanu dadweynaha u sheegaynaa in goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee kala qayb galay doorashadu in ay aad iyo aad ay indhahooda u soo jiidatay doorashadaas caalamka oo dhan, iyaguna ay ka marakaceen. Somalilandna lagu bogaadiyey, lagu hambaliyeeyey sida fiican ee quruxda badan ee aan meel laba Afrika ka dhicin aynu ugu galay doorashada aynu u galay. way axsaabta ula tageen inay cid walba hambaliyo u geeyaan sidii wanaagsanayd ee quruxda badnayd aynu doorashada u qabsannay, iyagoo ka marakacaya inay ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah. waxaanu xisbiga kulmiye haddaanu nahay aanu u hogaansamaynaa go-aanka doorashada ka soo baxay, guddida doorashada ka soo baxay ayaanu u hogaansamaynaa. dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiyena waxaanu leenahay inagu duqaadkeenu muujinaynaa, waxaynu sugaynaa go-aanka ayaynu sugaynaa. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. intaasaan anigu kaga baxayaa. hadda anigu waan ku darayaa guushu way soo baxaysaa. go-aankii waxa uu ku xiran yahay komishanka doorashooyinka. waxaan uga digaynaa inay dad badan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani inay xaflado khiyaal oo been abuur ay dhigayaan. waxaa ka mid ah meelaha laga dhigay xalayto oo ahayd 4 bishuna ay 14 ahayd guriga guddoomiyaha xisbiga. waxaa ka mid ahayd maamuus hotel, waxaa ka mid ahayd Hargeysa meelo ka mid iyo Burco. intaasoo dhan waxa weeyaan waa wax dadweynaha lagu jahwareerinayo, lagu wiiqayo oo ay ka soo horjeedaan anshaxa iyo xeerarkii doorashooyinka. farxaddu way dambaysaa ciddii hesha, waana la ogyahay cid waliba guusheeda iyo ciddii guuldaraysa ciddii kaleba
waxaanu aad iyo aad ugu boorinaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay farxad ku fadhiyaan guryahooda oo aanay damaashaadin oo aanay qalbiga walaahow aanay lagu ridin dabeetana iyadoo la ixtiraamayo lagu dhegan yahay aan la sugayo sidii la isku ogaa xisbiga kulmiye wuxuu si buuxda u taageerayaa u ixtiraamaya sida uu sheegay afhayeenku go-aanka xisbiga komishinka doorashooyinka heshiisyadii la galay xeerarkii la dhigtay ayaanu si degan oo ixtiraam iyo sharaf leh aanu ku bogaadin ku joogaynaa maalinta ay komishinku doorashooyinku soo baxana waa la arki doonaa cidda faraxda iyo cidda naxda marka shacbiga iyagana iyo taageerayaasha anaga u mahadnaqaynaa codkii lixaadka lahaa ee xisbiga siiyeen 6 gobolba waxa aanu leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin insha allah khasaare noqon maayo codkiini laakiin sharaf iyo xurmo ayaynu ku samaynaa la qasan mayno cidda iyadu waxaan loo sheegaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi